رئيس الوزراء الصومالي وحيري هذا إنه سيد الضدك أو كلا نقنعنا هذا النفط إنه سوق ليس إنه إنه شيء ده أنا نقوم بأن لبري كودبور يهدي اللي بكون رأي إن اللي بحسن كتابته يبلا يودن بأن لقو خصبي دب فربضن بأنه مدح وين الصوم الرأي سكولرشيب كي بأن لودي ده يصدق سندود أردد يد لودي ده يي وحبر الشدي عادي قاعد باللودي ده يي وحنو كذا قال لنا أردد يد كذا قال لنا إلا لبعتنا أردد دكسك السريع سبتر بحنانا يهود يا تركي يا كل أنت دجال قار بدلنا ويكون عوامين قار بدلنا فرنتي كشران شيت كادر عدق وحنو أمرنا وينا نوعله دولة نولراي هي مدح وينا نولراي أو نلصنا نضدك كلا الصومالي أرضي ذا ريربو هالله ما أنت وحين نلمدناي أرضي ذا كلا الصومالي سيدا يقولوا لي يبنون الله رئيس الوزراء الصومالي وحيري هذا إنه سيد الضدك أو كلا نقنعنا هذا النفط إنه سوق ليس إنه إنه شيء إلهي إنه إنه قدك نفط بين سوق الشيء وما سنتين بقول كم بقول مدلني أراد أوبحة يهلك فردية منهج كي أي حكومة لهايين أي لهايين دولة الفدرال كالصوماليا ذلك أين بدن علن كي سكروا هايين إن ما أنت ما حكوا هذا حقوق أي سوق عادي وسيدا معموله الشيء أنا ما أنت كذب أنا أركي إنه حكي المنهج أنا لهين وحكي الإلهي وكم هتسن مرك الله بانه وحنوجا مهدي علينا رنتي ذلك أي جليان يتشهد جاي يكون بحيان دمان مسؤولين تمام الكينة وجاميها يوحك اللي يصير كواحد برشة يا دمان مسؤولين تقعدن. ما أنت إنه مدحوينين إنه هرتشوا ومنهج كيا إنه دجانا إنه اللي نوضح فردانه فحن هيشيل أو نصيب بدن أو فرحة بدن استبياله وسو جوبشو وها waxaan rajeynayaa inaynu noqono madaxda Britoola aan fiici doonto reer ACC reer Khaatumo magaalada Buuhoodle marba waxa loo iman jiray in calanka Khaatumo la isku sawiro qofka raba inuu calanka Khaatumo weyneeyo magaalada Buuhoodle iman jiray mar alxamdulillah rabbil caalamiin maanta deegaanka ACC oo dhan calankeeni ayaa ka taagan taasoo guul weyn ma aha alxamdulillah rabbil caalamiin su'aalna waan rabaa inaan idin weydiiyo waxbaad baranaysaan Soomaa maxaa wax lagu bartaa laba wax lagu bartaa waqti iyo akhris maanta inaan 30 iyo dhowr sano ka bacdi aanu manhajkii dawladdeena federaalka Soomaaliyeed ee sumadii Soomaali weyn aanu halkan ku daafurayno madaxweynaheena ku daafurayo caruurteena aan u qaybin doono waxbarashadeeda iyo qaabka wax u baran doono la bedeli doono insha Allah iyadoo la bari doono taariikhooda meeshay ka soo jeedaan ma aragti dhaqankooda diintooda waa maalin weyn waa maalin farxadeed runtii waxa kale oo iyada lafteedu farxada iskuulada sanad dugsiyeedkan hadda bartamahiisii lagu jiro imtixaankii midtermka la galayo in buugaagtan ina hor taala ardaydu ay dhigan jirtay kanada RASC meelaha laga dumiyay ee laga la dagaalamay dhowr toban sano u dambeeyay waxay ahayn waxbarashada halkaas asal u ahayd ardaydu qish bay barteen iskuulka inay ka tagaan bay barteen inay waxbarashada danaamin bay dirteen wax walba xun bay ku dhaqaaqeen say ugu carraan manhajka loo dhigaayo culayska la saarayay ilaahay subhanahu wa ta'ala faraj buu noo keenay xornimada nimankii iyo inaan iska saarno noo keenay manhajkaas oo dawladda federaalka keentay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada uga mahadnaqano baa ilaahay noo keena dhammaan bahda waxbarashada iyo maamulka gobolka waa mahadnaqaya mahadnaqa ka tagi maayo waliba waxaan raacsiisanayaa inaan ku faraxsanahay in maanta aan dhex joogo dugsigii sare ee Samatar Baxnaan oo ardaydii inamaya hablaba ay hortooda fadhiyaan aad ugu faraxsanahay farxadda aan dareemayo iyo halka aan joogo oo iskuulkii loogu magac daray abwaankeeni waa Samatar Baxnaan waxay soo xusuusisay mid kamida maanku harkii gabayadiis uu lahaa xawliga durduradan ka baqixeeb inaan galo farxadda aan dareemayo hadda aniga qudhaydo hadii la yiri xeeb waa gaadhi lahaa waan malayn hadii la yiraahdo marka runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan idin hor joogo oo aan nasiib u helo anigu inaan idin jeediyo wixii marka aan dan moodo hadii Ilaahay ka dhigo munaasabada aynu meesha u joognaa waxa weeye
waxaynu daah furaynaa oo gobolkii Cayn caasimadiisii weynada Buuhoodle ku daah furaynaa manhajkii tacliinta ama waxbarashada ee dawladda federaalka Soomaaliyeed ay ugu tala gashay in loo dhigo oo ay bartaan ardayda Soomaaliyeed meel ay joogaanba taa macnaheedu waxa weeye manhajkani wuxuu xambaarsan yahay Soomaalinimo soo waxaynu doonaynaa maaha soo waxaynu soo dagaalanay maahayn soo waxaynu u dhimanay maahayn manhajkani wuxuu xambaarsan yahay Soomaalinimo wuxuu ka turjumayaa Soomaalinimo wuxuu idinku barbaarin doonaa Soomaalinimo heer SSC khaatumo Soomaalinimadaas deeqda